isagoo dhalinyaro ayuu wuxuu qayb ka noqday halganka gobonimo doonka si heeriyada gumaysiga la isaga tuuro. waxa uu ahaa siyaasi aan lagu xaman hanti urursi. 12 sannadood ayuu xabsiga ugu jiray xukuumadda kacaanka ee Generaal Maxamed Siyaad Barre, balse kama tanaasulin mabaadi'diisa siyaasadeed ee dimuqraadiyadoonka. siyaasadda Soomaalida waxa uu ka gaadhay halka ugu sarreysa. waxa uu qaramada midoobay uga dooday dalweynaha Shiinaha ee hadda horseedka u ah quwadaha adduunka iyo weliba Falastiiniyiinta la dulmiyay. waa asaasihii iyo hirgeliyihii nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland. qofka aynu ka hadlaynaa waa Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo maanta oo kale 3 May sanadkii 2002 ku geeriyooday dalka Koonfur Afrika oo xaalad caafimaad loogu qaaday. intaynu waxaan dalkeennii ahayn daba joogno beelaale kalitaliyay lagu noqda oo daalim oo jaa'ira ma waayo anigu noqon maayo ballan baan idinka qaaday maalintaan idin wadi kari waayaan idin hogaamin kari waayo waa idinka tegaya laakiin ul idinku ururin maayo idin karbaashi maayo. waxaa dhalay aabba ganacsada ahaa balse isagu waxa uu jeclaa siyaasadda isagoo dhalinyaro ah ayaanu ka rumeeyay hamigiisii. degmada Oodweyne ee gobolka Daadmadheer ayuu ku dhashay sanadkii 1929. waxa uu wax ku bartay dugsiga Sheekh isagoo markii dambana waxbarasho u tagay waddanka Ingiriiska. isagoo dhalinyaro ayuu noqday xogayihii guud ee ururkii SNL. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu hoggaan u ahaa ergadii boqortooyada Ingiriiska ka soo saxeexay xornimada Soomaaliland. lama huronin hawl kara sida geed harweynba lagu soo hirtaaye. lama huronin hawl kara sida geed harweynba lagu soo hirtaaye. hedaydiyo nasiibka ishareerayaale hedaydiyo nasiibka ishareerayaale laba hilin habboona rabbow igu hagaaje. jacaylkii shacabka Soomaaliland u qabeen in ay la midoobaan walaalahooda koonfurta Soomaaliya si ay gundhig ugu noqdaan midnimada shantii Soomaaliyeed ayuu markiiba dawladnimadii Soomaaliland isaga iyo raggii la socday ay geeyeen Muqdisho. inkastoo uu isagu ku dooday in shacabku ay qasbeen. shacbiga ayaa shalay markii ay lugeynayeen la geysay oo anigu diidan waan ka hadlayaa mawduucaas oo war badan oo suuqa jooga ayaan doonayaa maanta inaan reebe oo waan ka hadlayaa mowqifka aan ka taaganahay anigu arrinka ka taaganahay. shalaytana waa tidabada iraadada shacbiga dabada inaga qabtay biduun qayd wala sharad geey halkan la fadhiyo. waa maxay ahayd xamaasadda lagu jirta haddii ninkii la taabto waa lagu gubanay xamaasadda lagu jirta rag baa waa la goostay mooyee macnahayn ku goosanay aniga iga buuxa rakama buux rag aniga sheegaya waa la goostay bay iyo maxay ahayd nimanka xoolaha dhacay 80-aadkii dhacay ayuun baa anigu wax ka weyn baan hayaa waa ka buuxa waxaynu sababtaa inaan nimanka u wada jiray ayaa iga buuxa. 60kii waxaanu ka baaskay halkan qaynuunkii la isku raaci lahaa active union 23 article bay halka lagu baaskay fadhiga ayaa lagu baaskay baarlamaanka 30 ku baaskay programadii maxay hayday celebration ka waxna lagaga maday baarlamaanka markaan maray ayaa waa la fadhiyaa baarlamaanka baa la fadhiyaa war iyo wacaartoona kama hayno dhaxlayada meesha marayaba dibitaatiyaal baan ana barnaamijkii yaabana war kama hayno halkii la fadhiyo maxaa baarlamaanka lagu hayaa waa soo gal mursal mid loo oran jiray oo ka biyuutan meesha ka ayaa war mursal maxaa la hayaa magaasuu atadi union ayaa laga hadlaa atadi union baadii ibn qilista naqaltayaan ku qoran buu dhibo waa 2 article waa la tuuray tiyaan inuu geeyay tii aynu halka baas garaynay waa la tuuray 2 article labadii dawladda waa la isku daray baarlamaanka waa la isku daray bas labadii dalna waa la isku daray intaas hadda israacada oo ilaahay kama dhige aatirahaan bahada caalamkii waa nagu yar dhaga adeegay oo malaa wixii socon maayaan bahada xaqii hadii aynu eegno tirahaan ma yiraacayo anigu idinka haray hargeysa iyo berbera iyo burciyo laascaanood oo laga xukumo xamarna deganaan maayo waa ka xajiriya
xukuumaddii rayidka aheed ee allaha u naxariistay madaxweyne aadan cabdulle cismaan waxa uu noqday wasiirkii gaashaandhigga isagoo markii dambena noqday wasiirkii waxbarashada ee jamhuuriyaddii soomaalida sannadkii 1967 ayaa madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke u magacaabay ra'iisul wasaarihii jamhuuriyadda soomaalida jagadaasi oo wahayay ilaa intii ciidamadu ay afgembiga ku qabsanayeen soomaaliya sannadkii 1969 cigaal markii siyaad barre xukunka uu la wareegay waxa uu ku sugnaa xarunta qaramada midoobay ee New York halkaasi oo uga doodayay in Shiinaha lagu daro wadamada leh codka diidmada qayaxan ama fiitooda. We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight. markii uu dalka ku soo laabtay ay ciidamadu xabsiga u taxaabeen waxaana uu xidhnaa muddo gaadhaysa 12 sannadood markii Soomaaliland dib ula soo laabatay madax bannaanideeda waxa uu noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliland iyadoo sanadkii 1993 lagu doortay magaalada Boorame mar kale ayaa madaxweynaha Soomaaliland loo doortay sanadkii 1997 intii uu xukunka hayay waxa uu dhisay hay'adaha dawladda waxa uu soo daabacay lacagta shilinka Soomaaliland si looga maarmo lacagta Soomaaliya dastuurka ayuu hirgeliyay nidaamka dawladnimada ayuu taabageliyay dadka daraasadeeya dawladnimada Soomaaliland ayaa sheegay in hanaanka iyo haykalka dawladnimo ee Soomaaliland ee hadda uu ku qotomo aragtiyihii madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal gaar ahaan dhinaca shuruucda iyo haykalka dawladnimo lama huronin hawl kara sida geed harweynba lagu soo hirtaaye lama huronin hawl kara sida geed harweynba lagu soo hirtaaye dadka dhaliile xukunkiisii ayaa sheega in uu ku guuldaraystay baajinta dagaaladii sokeeye ee Soomaaliland ka dhacay intii uu xukunka hayay kuwaas oo ilaa hadda saameyn ku sii leh hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliland allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa sanad kasta maanta oo kale laga xusaa deegaamada Soomaaliland